عندك رحمة وفي وسطك مغفرة وفي آخرك عتق من النار رمضان يا خير الشهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أحبائي في الله، أولاً كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. maanta oo isniin ah taariikhduna ay tahay lixdii bishii shanaad 2019 miilaadiga, kuna beegan kowdii bishii ramadaan 1440 hijrada nabiga صلى الله عليه وسلم. waxaan idinla wadaagi doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala maalmahan soo socda iyo ayaamahan fadliga badan kelimaad iyo odhaahyo iyo halkudhagyo ku aadan qiimaha iyo qadarinta ay leedahay bishaan ramadaan. maanta waxaan hordhac iyo horumar ka dhigi doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala kelimo biyo shubkeedu uu yahay iyo meesha ay iskugu imaanayso iyo halkudhageedu uu yahay bishaan ramadaan. waa bil la bixiyo mushaarka bisha ugu badan. sidee kelimaadkan soo socda ayaad ka dheehan doontaan ama aad ka arki doontaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. ugu horrayntii, dadkan uu ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala waxay u qaybsamaan qaybo. faalkhalqu fii haadihi addunya imaa caalimun caamil وإما جاهل غافل وإما رشيد وإما سفيه إما سعيد وإما شقي. mid wax garanaya wuxuu garanayana dhaqan gelinaya, wuxuu garanaya diin ha noqoto ama maadi ha noqoto. qaybtaasoo hal qayb isku ah laakiin laba qayb ah waxay ka mid yihiin bulshada bini'aadamka ilaahay uu abuuray iyo makhluuqa uu alla abuuray qayb ka mid ah. waxaa kaloo ka mida jaahilun ghaafil, mid jaahil ah oo kii hore ka soo horjeeda oo aan waxba garanaynin, hase yeeshee dhibka ugu weynee haysta uu yahay in uusan garanaynin inuu jaahil yahay, isla quman yahay, qumanihiisuna uu qoorta u suran yahay. qaybtaasna waa labo hal ah, oo labana waa laga dhigi karaa, halna waa laga dhigi karaa. qaybtii ugu horreeyey bayna ka soo horjeedaan. waana nooc ka mida makhluuqaadka uu allah abuuray subxaanahu wa tacaala. waxaa ka mida mid hanuunsan oo waddadii iyo wixii loo abuuray iyo ujeeddadii loo abuuray garanaya, iyo mid safiih ah oo waddada garamarsan oo aan garanaynin, si junuun iyo waalli'ana doonaya adduunyada inuu ugu noolaado. waa qayb ka mida dadka uu ilaahay abuuray. waxaa kaloo ka mida qaar saciid ahoo faraxsan iyo qaar shaqi ah, mu'min iyo gaalla waa ka mid. qaala tacaala: minkum man yuriidu addunya wa minkum man yuriidu alaakhira. waxaa idinka mida qolo adduunya doona
iyo qolo aakhara doon ah meel kale adduunyadan aad arkaysaan waa meydaan waa meel bannaan oo sida meelaha kubadda lagu ciyaaro oo kale ah adduunyadu waa meel camal waxa camalkaasi meesha la isku abaalmarinna waxa weeyaan waa jannada meesha ay shahaadaadku ay yaalaanna waa halka laakiin shaqadu waa ay kala duwan tahay shaqada mushaarada lagu kala qaatay aad iyo aad bay u kala duwan yihiin laakiin su'aashu waxay tahay yaa bixinaya mushaarka allah baa bixinaya su'aasha labaad waxay tahay mushaarka la bixin doona ma kala badan yahay haa sida adduunyada loo kala shaqeeyo ee loo kala shaqo badan yahay ayuu mushaarkuna u badan yahay u kala badan yahay su'aal saddexaad qofka aniga adduunyada igu dhaafa camal wanaagsan oo saalix ah sidaana janno ku gala anigoon camal wanaagsan la imaanin ma dhici kartaa inaan aakharo intaan shaqaysto inaan aan la dhaafo qofka oo camal wanaagsan aan la imaado kiisa ka badan maya alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala walow rudduu lacaadu haddii dib loo soo celiyo dib bay ugu soo noqon lahaayeen ama wixii laga reebay adduunyaday la imaan lahaayeen kulli ummadda aan soo sheegnay ilaah bay u noqon doonaan uma rudduu ila allahi mawlaahum alxaq alaa lahu alxukmu wa huwa asracu alxaasibiin makhluuqaadku ilaahay bay u noqon doonaan adduunyada oo keli abayna shaqadu taalla la asaddaqanna rabbi aljicuud rabbiyow iceli aan sadaqa la soo baxo rabbiyow iceli lacallii acmalu saalixan lagama yeeli doono sidaa daraaddeed waxaanu leenahay waxaa camalka iyo shaqada adduunyada lagu kala mushaar badan yahay waa aqoonta iyo macrifada aqoonta iyo macrifadaad alla u leedahay ayaa aakharana loo kala shahaado badan yahay intaad alla taqaano camalkeedana aad la timaado ayaad shahaadadeedii helaysaa adduunyada waxaa lagu kala mushaar badan yahay qofka oo shaqada u sabra daa'ima isku mushaar ma aha qofka shaqada ka tagtaga ama seegseeg marna ka taga marna sameeya iyo qofka kale waxaan leenahay qofka salaada daa'ima soonka iyo khayrka daa'ima labid ma aha la mushaara ma aha qofka marmar sameeya biluhu kala maalmuhu kala mushaar badano wadamada gaala dadka ku nool bisha December gaaladu ay shaqo galaan way ka mushaar badan tahay bilaha kale habeen iyo maalinna qofka habeenka in badan shaqeeya habeenka ayaa shaqo badan waxaan leenahay haddaba 12 bilood oo alla abuuray bisha ugu mushaarka badan waa bishan ayada ah waa bisha Ramadaan maxaa yeelay sijniga ugu weynaa ayaa la furay waxaana xabsiga ugu weynaa weeye sijnigu waxaana lagu xareynayaa cadowgeena midka ugu weyn oo shaytaana waana miduu nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii uu Ramadaan ku yimaado 8 janne albaabkana waa la furaa albaabadeeda waa la furaa naarta toddobadeeda albaabna waa la xidhaa shayaatiintana waa la silsiladeeyaa haddaba allah subxaanahu wa tacaala jannadiisuu kuu furay ee qalbigaaga fur waxaadna ogaataa si kasta ood adduunyada wax walba u khasaarto inaad aakhiradaada khasaarta ayaa kaaga adag xalaqada soo socota tani waa muqaddimiye hordhace ayaan ku faahfaahin doonaa nagala socda بإذن الله تبارك وتعالى حلقوين كله إنتانو كل مينو نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.